kadib markii dadku ay bilaabeen inay aaminaan allah iyo nebinimada muuse ayna ka furtaan fircoonkii la nacdalay, waxaa cadhooday fircoon caro weyn, wuxuuna amray askartiisii inay dilaan muuse ayna ku soo celiyaan xayndaabkiisa dadka aaminay muuse iyo rabbigiisa. wuxuuna cilaamiyey in qof walba oo aamina muuse oo allah mutaysto dhimashii cadaab daran. waanan xaggan idinku faahfaahin doonaa qisadii ugu quruxda badnayd ee la maqlo, waana qisada haweeyneydii u adeegi jirtay reer fircoon oo gabadha u dhalay fircoonna u shanlayn jirtay. kadib markii ay dhacday qisadii dhex martay sixiroolayaasha fircoon iyo nebi muuse, ushii nebi muusena isku beddeshay mas weyn oo ay liqday masaskii sixiroolayaasha, waxay dadku bilaabeen inay aaminaan allah kadib markay indhahooda ku arkeen mucjisada dhacday. waxaana jirtay haweenay u shaqayn jirtay fircoon, una adeegi jirtay carruurtiisa, una shanlayn jirtay gabdhaha fircoon, kana shaqayn jirtay nadaafadooda. waxaana haweenaydan ninkeedu ka shaqayn jiray sidoo kale qasriga fircoon. waxaana haweenaydan u shaqayn jirtay fircoon iyo saygeedu ay ka mid noqdeen dadka aaminay allah. waxaana warka ninkeedu gaaray fircoon iyo intuu u shaqayn jirtay, waxayna ku qanceen inay ku dilaan dadka hortooda iimaankiisa dartiisa. waxaana haweenaydan shaqaalaha ahayd ay markay aragtay dhaqanka fircoon iyo arxandaradiisa go'aansatay inay qarsato islaamnimadeeda. waxayna lahayd 5 carruura ay ku quudin jirtay xooggeeda, waxayna u cabsatay inay gaajoodaan oo ay dayacmaan, waxayna qarisay iimaankeeda. waxaana maalin maalmaha ka mid ah iyadoo timaha u shallaynaysa gabadha fircoon ka dhacday shanladii, waxayna iyadu ku dhawaaqday sikadiisa bismillaah iyadoon u qasdin. waxaana arrinkani ka yaabiyey gabadhii u dhalay fircoon, waxayna su-aashay, waxaad ka wadaa aabbahay fircoon? waxaana haweenaydii ay ugu jawaabtay, maya, waxaan ka wadaa ilaahayga iyo ilaaha aabbaha. waxaana gabadhii fircoon oo yaabani ay sheegtay inay ku wargelinayso arrinkan aabbaheed, waxayna haweenayda ku tiri, u sheeg haddaad rabto. gabadhii fircoon ayaa iyadoo degdegaysa u tagtay aabbaheed, waxayna ku wargelisay arrinkan dhacay. waxaana fircoon u yeedhay gabadhan haweenaydan shaqaalaha ahayd, waxayna uu ku yiri, ma waxaad leedahay ilaah aan aniga ahayn? waxayna ku tiri, haa, ilaahayga iyo ilaahaaga allah. markii uu fircoon arrinkan maqlay, waxaa gashay caro daran, wuxuuna ku yiri, haddaad ka soo noqon weydo waxa aad tiri, masiirkaagu wuxuu la mid noqon doonaa kii ninkaagii. wuxuuna ku handaday inay isaga u soo noqoto, haddii kale uu xabisi doono, uuna dili doono, uuna cadaabi doono. waxaana fircoon oo naxariis darna uu ogaa inay jeceshahay carruurteeda, wuxuuna ku amray askartiisii in la karkariyo biyo iyo saliid. waxaana isaga uu keenay carruurtii 5 ahayd ee dhashay oo saliid karkaraysa horteeda. waxaana dabadeed uu ka dalbay inay ka noqoto diinteeda. waxaana askartii u amray inay qaadaan ilmaheeda ugu weyn, waxayna ku rideen saliiddii karkaraysay. waxaana hooyadani ay si weyn u oyday, qalbigeeduna uu dildilaacay. waxayna fiirinaysay ilmaheedii oo shiilmaya, waxaana iyadoo u cabsanaysa fiirisay walaalihiisii ka yaryaraa oo geesta taagnaa. waxaana fircoon mar kale uu ka dalbaday hooyadii inay kufrido oo ka noqoto diinteeda, ayna u soo noqoto isaga si uu u cafiyo oo u dhaafo carruurteeda. waxaana hooyadan oo allah jecel iimaankeeda oo weyn ayaa u yeeriyey inay diido amarka fircoon, waxayna diiday amarkii. waxaana askartii ay qaadeen ilmaheedii labaad ee xoog uga dhufteen hooyadii oo iyadu ku dhegan, waxayna ku rideen saliiddii karkaraysay. waxaana haddana ay qaadeen kuwii kale oo dhan oo ay ku rideen saliiddii karkaraysay. waxaana keliya oo u hadhay cunug caananowga oo xamili karin cadaabta fircoon. waxaana fircoon fasaxay askartiisii oo isku dayday inay gacmaheeda ka xoogaan, waxayna tiri, isuga. waxaana ay dunida ugu jeclayd cunugeeda, mana xamili karin ilmaheeda oo askartu saliidda ku ridayso. wayna u baqday, waxayna si kadisa ilaah uga hadlayay ilmihii yaraa ee iyadu ay gacmaheeda ku haysay. wuxuuna ku yiri, hooyo, cadaabta adduunka waxaa ka daran cadaabta aakhiro, ha biqin ee ku taagnow diintaada, masiirkaaguna wuxuu noqon doonaa janno insha allah. waxaana arrinkani ka yaabiyey askartii iyo dadkii arrinkan goobjoogka u ahaa, laakiinse askarta waxba gacmahooda uguma jirin. waxayna fulinayeen amarka fircoon, waxayna ka baqayeen ciqaabtiisa.
waxaana fircoon amray in ilmaheeda lagu rido saliidda, wayna ku rideen. waxaana haray hooyadii, waxayna ogaatay inay gaartay daqiiqadihii nolosheeda ugu dambeysay. waxayna tiri isuga, waxayna u dhaqaaqday xagga fircoon, waxayna ku tiri waxaan wataa dalab. wuxuuna fircoon ku yidhi, muxuu yahay dalabkaagu? waxaan rabaabay tiri in aniga iyo carruurtayda lafaha iyaga lagu xabaalo xabaal keliya. wuxuuna fircoon u celiyey, waan aqbalay dalabkaaga. waxaana lagu riday saliiddii karkaraysay. waxayna ogeyd noloshan adduunku ay tahay maalmo kooban, aakhirana ay tahay nolosha baaqiga. waxaana qisadan inoo soo wariyey nabigeena sala allahu calayhi wasalam, sida uu wariyey ibni cabaas radiallahu canhu. waxaana uu yidhi, waxaa nabigeenu sala allahu calayhi wasalam uu noo sheegay in habeenkii la dheelminayay israa wa micraaj ay soo gashay ur aada u udgoon oo caraf badan. waxaana uu weydiiyey malakal jibriil oo la socday, maxay tahay urtaan udgoon? wuxuuna jibriil ugu jawaabay, waa urtii gabadhii shaqaalaha u ahayd fircoon iyo carruurteedii. waxaana jibriil habeenkaas nebiga sala allahu calayhi wasalam uga warramay qisadan. like oo la wadaaga asxaabtaada si aad u faafiso qisadan cajaa'ibta badan.